subscribe saar oo nagu soo biir. Assalaamu calaykum. maanta waxaan rabaa inaan halkan idinku tuso nin dilay caruurtiisii iyo xaaskiisa la yaab. ninkan oo dhashay 1998 isagoo ka soo barbaaray wadanka Mareykanka kadib markii uu dil geystay. ninkan oo dilay nin lagu magacaabi jiray John Miral. kadib ninkii markii uu dilay booliska ayuuba la xiriiray oo ku yiri kaalay ee xira nin ayaan dilay. war xariifsana ninkan kulaha nin baan dilay kaalay ee xira. ninkani malaajeelka waxa uu haystaa wax fudud uu markiiba ka soo baxsan karo. xariifkan jeelka markii lagu xiray waxa uu islahaa jeelka ayaad ku waaraysaa, balse 2 bilood kadib ninkii waxa loo sheegay in lagu xukumi doono dil toogasho. kadib ninkii markii uu maqlay in lagu xukumayo dil toogasho ayuu isku dayay in uu jeelka ka baxsado. maalmo kadib ninkii waa u suurta gashay inuu ka baxsado jeelka. isla markiiba waxa uu aaday guriga gabadhiisa isagoo markaasi dhalay 2 caruur ah oo habla ah. markii uu gurigii galay uu cagta saa u dhigay xariifkan, gabadhiisa ayaaba markiiba la xiriiray booliska oo ku tiri Hello, waxa soo dhuntay nin dambiile waxa uu joogaa gurigayga, kaalay iga soo gaara xira. haddaba aan kaftanka iska dayno, aan sii wadano sheekadan. hadda ayuu soo baxsaday, hadda ayaana la xirayaa. ninkani markii uu sii baxayay ama uu guriga laga sii xirayay waxa uu ugu hanjabay gabadhiisa in uu yada iyo caruurtaba dili doono, isagoo intaasi u raaciyay in uu mar kale soo baxsan doono. ninkan oo lagu xiray jeel kale oo loo yaqaano Michael iyadoo laga bedelay xabsigii hore ama jeelkii hore uu ku xidhnaa, oo xabsigan Michael loo yaqaano oo ilaaladiisu aad iyo aad u adag yihiin ayaa qof bini'aadan ah ka baxsan karin, balse way nala dheeraatay. qayb labaad ayaan u samaynaynaa. qaybtaas labaad waxaa laga yaabaa in hadda fiidiyogan aad daawanaysid qaybtiisii labaad ay ku jirto YouTube.